odayaashii waxgaradka ku dhaqan magaalada Balad Xawara waxa ay cabasho ka muujinayaan ciidamo ay sheegeen inay yihiin Kenyaan kuwaas oo ka soo tallaabay xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya. waa kan wariyahayaga Maxamed Ciise Maxamuud oo warbixintaasi inoo faahfaahiya. bulshada ku dhaqan degmada Balad Xawa ee gobolka Gedo ayaa siyaabooyin kala duwan waxa ay kaga hadleen ciidamo ka tirsan dawladda Kenya oo ku sugnaa dhanka xuduudda kuwa oo la sheegay inay ka soo tallaabeen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa ee dhanka degmada Balad Xawa ee gobolka Gedo. nabadoon Idris Gaaroodi oo kamid ah waxgaradka ku dhaqan degmada Balad Xawa ee gobolka Gedo oo la hadlayay telefishinka Somali Cable waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay labadii maalin ee la soo dhaafay dhanka xuduudda ay ka soo gudbayeen waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa ujeedada ay leeyihiin ciidankaas. ujeedada ay leeyihiin ciidanka horta waxaan la yaabanahay ayaantii la qabanayay siyaasiga muxuu ahaa ina Cabdishakuur arrintii xeer ilaalinta Kenya waa iyadii maalintii ku horeysay ku dhawaaqday hadda markii la soo daayayne isla markii anaga Kenya hadana weerar nagu soo qaaday marka waxaan bal la yaabanahay xiriiradaas ka dhax inay wax ka dhaxeeyaan laakiin Kenya hadda waxa ay rabto sida aan aad ugu dareemayna in ay xuduudkii hore oo noo dhaxeeyay xuduud beenaadkii noo dhaxeeyay inay ka soo gudubto oo halka ka cabirto ka toosiso hadda ay badda ka soo galeen baan aad u aaminsanahay ugu yaraan intaasoo 100 mitir bay soo galeen xuduudkanaga waxayna sameynayaan cabir bay sameynayaan kii hore ayaantii hore aan la joojiyay aan ahayn mid kale ay sameynayaan bay mudahayaan magaalada gudaheedii customs-kii hadda la dhisay muxuu ahaa meeshii immigration-ka hadda la dhisay iyo magaaladii dhinacaas dhabadoo dhan ilaa dhinacaas waxay noqotay dhulkii ay ka dhigteen oo biray gelinayaan dadweynaha arrintaas way diideen oo waa ka gadoodeen birtay sii mudayaan waa la tuuraa ayaga waa la dhagax tuuray mashaakil baa ka yimid meesha sharaxaad baa la isugu waxaysbay ilaa shalay iyo dara. sidoo kale nabadoon Idris waxa uu sheegay in dadka shacabka ah ay ka hortageen ujeedada ciidanka ay damacsan yihiin oo ku aadan in ay sii ballaariyaan xuduudda dawladda Kenya ay doonayso in dhanka degmada Balad Xawa ay ka dhisto darbi aad u weyn. shala ma aqaan wacdarihi ka dhacay inay u istaageen gaari baa laga bajariyo busbaarka loo dhigay dhagax tuur baa laga daalay marka inay dib u soo ceshteen oo maanta iyo ma aqaan laakiin wali hadda ma soo gudbin awal hore xilliyadan waa soo gudbi jireen. mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka oo la xiriirna ayaa ilaa hadda ka hadlin dhibaatada dadka shacabka ay sheegayaan inay kala kulmayaan ciidanka dawladda Kenya ee damacsan dhul ballaarsiga. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.